intaad ku guda jirtid halganka nolosha intaad dhex muquurayso marxaladda dhalinyarnimada waxaad wajahaysaa marxalado kala duwan oo la xiriira xagga nolosha. waqtiga ayaa si qaldan wax isugu turjumay ee weli waa walaalay saaxiibo isjecel. dadkan ka hadlaya waa saddexda shakhsi ee maalmahan sheekadoodu ay ku badata baraha bulshada. waa Bilaal Bulshaawi, Daaci Mukhtaar iyo sidoo kale Cabdulla Roy. sidaan wada ogsoonnahay dhowaan waxaa muuqaal leef soo galay Bilaal Bulshaawi, waxaana muuqaalkaas uu kaga hadlay dabkii dhulka la simay suuqii ugu weynaa magaalada Hargeysa ee Waaheyn. Bilaal ayaa bilaabay xilligaas wixii ka dambeeyay barnaamij lacag loogu ururinayay dadkii uu dabkaas saameeyay, balse kommentiyada qaar uu dhibsaday ayaa waxa uu ku sheegay dadkaasi kuwa aan doonaynin in sadaqada ay la baxaan. dadka badi ayaana Bilaal ku tilmaamay inuu ku fududaaday habaar, laakiinse marxaladda leefka iyo dareenkiisa oo qiiro yeeshay. intaas ayaa keentay xaaladda Bilaal uu ku dhawaaqay waa sida dadka badi ay qabaan, balse waxaa dhanka kale isagana muuqaal iska soo duubay Daaci Mukhtaar isagoona Bilaal iyo tiimkiisa howsha lacag ururinta ku guda jiray. waxa ugu baaqay xilligaasi inaysan Hargeysa oo kaliya isha ku hoynin oo ay gadaal u fiiriyaan dadka ku dayacan wadooyinka magaalada Muqdisho. Daaci Mukhtaar waxa uu sheegay in hadalkaas wixii ka dambeeyay lagu soo qaaday weerar bartiisa TikTok-ga, taasna ay keentay in ciwaankiisa report lagu qabto. dhanka kale codadka WhatsApp-ka ay isku dhaafsadeen Bilaal iyo Daaci Mukhtaar ayaa ku faafay baraha bulshada, waxaana codadkaas soo bandhigay Daaci Mukhtaar oo sheegay in Bilaal uu u hanjabay, inkastoo ay fiicneed in si hoose ay u wada hadlaan maadaama dhalinyaro walaalo ay yihiin islamarkaana qaladka iska qancin karaan iyaga dhexdooda, culays kastana ay ku dhammayn karaan si degan oo aan dhib lahayn. dhanka kale Cabdulla Roy ayaa isagana soo sameeyay riwaayad uu ku sheegay in kaftan ay tahay islamarkaana uu kala jeeday walaalkiisa Bilaal Bulshaawi. sida muuqata hadda saddexdan dhalinyaro waa kuwii wanaagga loogu baahnaa in dhalinyarada ay ku hogaamiyaan, balse maanta waa ay cuqdad isku qaadaan. waxay taas dib u dhigaysaa qof waliba oo iyaga ka mid ah islamarkaana horumar jeclaa, maxaa yeelay qof kasta bartiisa bulshada waxaa ku xiran dad badan, dadkaasna xumaan waxa uu kaga gudbinayaa walaalkiisa kale. taasna waxay keenaysaa in kalsoonida ay ka wada lunto dhammaantooda, dadka ku kalsoonaana ay ka haleelaan barahooda TikTok-ga. warbixinteena waxaan kusoo gabagabeynaynaa fariin baaquu ku socoto Bilaal iyo sidoo kale Daaci Mukhtaar iyo Cabdulla Roy. fadlan qof waliba oo iyaga ka mid ah raaligeliya walaalkiisa. waqtiga qaladka ayaa keena, waana wax laga gudbi karo islamarkaana laga heshiin karo. in cuqdad calooshaad isugu qaadaan waxay taas dib u dhigaysaa horumarkiina.